السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند وديال كنا السود وهذا برنامج برور دقيقة وإذن كجا إيمانية تلفزيون كعالمي رويال 24 استوديو هسا مقالة لندن أو أن وقت تلاقنا وهالكن إن أن وقت برور دقيقنا الله قلنا حريستو شنوين كيسنا كورابي هنا قدام بدافع وحكب حي أمد الصوماليات ملكست أو أي شوك تبع متكملة تيرار كفنك أمد الصوماليات كنا مد الفنانين تاني ووينيد هو يدي فنكا محمد أحمد كنا جيريودي تطبيعي طبعا كي بيشن تشينوري أينو كشرنو مقالة هرجيسة أنا جو ملكستو أنا شوقنا بقى هل كان وجبرور دقيقنا وحعاو استوديها إلى شوقة وقت جودا قالي أنا هل كان وصهر إن أي هل كان وجبرور دقيقة كان الشاكيان وقت يدي أي لصوقاتين تاريخ كيسي فن كيسي وحيا به أي لصومر الفنانين وفر بدن أنا كباب بلا بدينا عيجن ميدك تا عبد الرزاق قادعو عبد الرزاق أحمد قادع ويان أي لنا عميدك تيجي حاجة إن وحكو حاجة إن وحويان فاطمة محمد شحشحلي وحكو سيحكتا وحويان إن خديجة محمود وقلنشو إن يولي بقى حريضة إسماعيل الدنيا وفنانين تي هو بلدي وابر يجونا عاود شعر هالكن إن أي كسو تبيان أي نوجو برور ديقنا فنان كني وانا إن جبحي والله ونحرسته محمد أحمد كله لنا عم بدي حذيدا هدي أم كحشيو فرحان حدك يولي بقى عبد الرحمن قاس أبوان آر شامع يولي بقى فرح مرتيلة يجونا عاو هالكن يجون مرتيا كسر هذا البرنامج كان أي نوجو برور ديقنا دمانتين أنا كباب بلا بابا إن قاعد ودينا عن مدك تيجي حاجة إن وحى إن جبحي إن فنان رنتي آدي وين آدي آدنا أقيم بدن ومدة الصومالية ملكست أو أي شوك تبع أي وضع قرنا يا محمد أحمد كله إن أنا آمن أرتا صحة فنك وحنا أرتا نوجوين ما مدى نوجوين هو يدي نوجوين فنك فلذا على اسمع الدنيا marka ugu horeysa ayada ku horeysayna ayada taariikhda noogu sheekeynaysa ilaa adduun haye waxaan jecelahay mar hadii uu gaadacay sida loo kala weyn yahay ayaanu doonaa caawa in aan uga hadalno taariikhdiisa isagoo oo soo la wada socotaanba ku soo biiray in fanka 1954 kana mid ahaaba markii uu calanku u dhalanayay dhinaca Soomaaliland gumeystihii Ingiriiska uu isagu kama mid ahaaba fanaaniintii qaybta weyn ka qaatay isagu halkaasi heesa badan oo wadaninimo ah uu ka tiriyay haddana waxaan jecelahay bal inoo taabato xarada Ismaaciil Duniya kusoo dhawo barnaamijkan caawadare ambaroor diiqda ah Duniya waxaan jecelahay bal dadweynaha in aad u yara taabato waxay aad ka xasuusato waqtiyadii qaaliga ahaa ee aad isla soo marteen aan kugu soo dhaweeyo Duniya bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan waxaan u fadhinaa tacsidii fanaankii weynaa محمد أحمد كله محمد أحمد كله وهو قد أنت الصومالي أيضا خاص أما فنانين الصومالية أيضا خاصة وابري نور كيدو أخا وأنا فنانكي فنانين توابين لبما هني انتي كله ويكوريسي لابو باقاري محمد أحمد كل وحا لا سمري كرن ما دهي كرو لكن وحا فنان وحا متأدب وحا متعلم وحا كفي عن فنكو إساقا جعلاي إساقا فنكا ما جعلين محاجرة وح الله لو وحا قبط فنكا وكفي عنان مسرح وكفي أنا هيسوم وكفي أنا مثلات وكفي أنا وحكستم وكفي أنا الله أنا حريستم هذا أنا برينا أنا ماشي نقولي ونقول أنت ما نبوك سنة سنة مالينا يا نين إسقى عملنا إن نهيل الدون الفنانين تصور مالك وبدنين لا يابي إن مثل ميد كسر بحدون طبعا سنة كذب لكن هذا وحلا السمن مجران محمد waxaan ku bartay anigu markiina la qoray idaacada oo iskuulkana laga soo kaxeeyay goor subaxa ayaa waxaa la soo galay baabuur
cara madoobi saaran cara guduudana saaran tahay oo soo maray meelo dhiiqooyina raadiya muqdisho urdiisoo ka soo galay waxaa soo degay cabdullaahi maxamuud cabdullaahi maxamuud waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi qarshe markuu ka soo degay ninkii idaacadda xukumayay ayaa garta alle waa cabdullaahi wuu ku orday maxamed axmed iyo dararamle ayaa la socday waxay ku talagaleen cabdullaahi wadanigii weynaa wuxuu ku talagalay xagga kowdii luuliya kasoo tumeen hal 720 bay kasoo tumeen halkaana kowda luuliyo inay ka tumaan way noo yeeran anagoo dhowr xaba ah meeshii joognay iyo waxyal waxayna xafidsiiyeen heeso heesaha waxaa ka mid ahaa mangawdo candhadii golaha marise aan maal hashana maante waxaa ka mid ahaa qoloba calankeedu waa cayn waxaa ka mid ahaa waa naxsanahay si waa ma wada xasuusan karee intaad ka xasuusan tahayun intaad ka xasuustaa dunia intaasaa muhiima waxaa ka mid ahaa heesaha hadda caanka ah oo wadaninimada lagaga heeso ayaa ka mid ahaa waa lasoo dhaweeyey heesihii baan xafidna dhowr bari xafidaynay waxay nala joogeen adiga heesihii baa la dhigay feestada iyo waxay nala joogeen inta dhowr bari ah tuleel baa la geeyey heese kaloo cabdullaahi qarshe la xafidsiiyey oo fiican laakiin hadda ma hayo markaas ka bacdi maxamed iyo waxaa noqday dararamle cabdullaahi qarshe wuu ka dambeeyey haye markuu unhalaha jooga cabdullaahina wuu noqday sidii baa labada raadiyo isula shaqayn jireen raadiya muqdisho oo raadiya hargeysa heesaha laysu dhaafsan jiray markaas qaraamiyaa jiri jiray heesahan inay wadan yihiin heese kale ma jirin qaraamigaasaa la isdhaafdhaafsan jiray waa laysla shaqayn jiray waxaa kusoo biiray gabdho badan meeshii hargeysa magool baxsan maandeeq dhammaantood walaalaha hargeysay ahaayeen soo maaha walaalaha hargeysa waxay ahaayeen sano farax nin la dhahaayo muxuu ahaaye way fara badnaayeen waa tiro badnaayeen haa intaad ka xasuusato uun riwaayada ay wadaan anu ma arkina waxaa lahaa xuseen oo farax iyo cabdullaahi marka riwaayadu waxay ahayd markaas wadaniya riwaayad magaca lahayd dhigan oo anu ma geline oo sida la sheegaya oo fiican ya magaceedu waa ilaawe aniga isaga waa waxaa iska lahaa xuseen oo farax حسين وفرح بسبيه هاي محمد أحمد وحو قاضي جري وابا بريه بلأسان أروريو بحسن مالين بقر مالين بقر على سبيل على سبيل السنوية هيستاس عبد الله هيسي سلامة تيرين كرو كبح هيسوه عانك كمد هيسوه كرسو عابا حبي كمد هاي بريغاس marka hadi sidii bay ku socotay sidaan u wada joognay sidii baa mid loo siibtay fanaaniintii waaweynay hal ay u baxeen sida yani maxamed wuxuu ahaa kii ugu dameeyey kuwii waaweynaa allahu naxariisto ilaahu naxariisto aamin shukrigiisa allaha ka dhigo dambi ma lahayn mid isagu iska gala mahane mid bini'aadan ka gala ma jirin wuxuu ahaa nin afgaaban wuxuu ahaa nin asluub leh wuxuu ahaa nin aan ku degdegna xumaanta dadka markaas ama darsi ahaadan ama hala shaqeeyaana ana intaasaan ka xasuusnahay mar baan waxaan wada qaadnay riwaayadda yidhaahdo sida kale oo isla shaqayn jirnee riwaayadda yidhaahdo shan qarni iyo shii waxaa lahaa ninkuu qaaqay la dhahaayo marka adiga iyo isagaa wada matelaya riwaayadaasi waxaa aniga dad badan ku jira dad badan baa ku jiray haye cabdi taaliil muxuu ahaa aakhiro kuwa badan bay ahaayeen sahla dawo aniga horta caasiya dhala
horta caasiya dhalay wadootileed faadimo alidin soo dhaweeya kan markaad qalanjo dhib adigu ruwaayadiis way farleeyahay annaga haddaan waa berinahay tiir baa naga jabay mid lamidaha naga jabay oo isku xigeen Axmed Saleebaan waa la qaaday marka hore xasan diiriyaa la qaaday Cumar Dhuule عمر دولي فاطمة قاسم محمد نور قريق هذا هو اللي سوى دبته الله كوراب أنا حتى تعالى هان لهي هلا دوبان ريه لها فانك وبر إيميلها المتيري وهذا هذا أمها صرتهاي الدنيا oo iyada halkaasi inooga sheekaysay taariikhdii iyo inta ay ka xasuusato Ilaahay ha naxariiste Maxamed Axmed Kuluc oo halkaasi inooga sheegtay badee taariikh runtii aad u fara badan oo ruwaayadihii uu soo metelay in heesuhu qaadi jiray runtii heeso badan oo caan ah jiro ku soo caan baxay inoo sheegtay in ay kamid tahay in heesta runtii aad ka loo wada jecel yahay ee Maandeeq sida alla wada socotaan ba dhamaantiin bal markana waxaan jecelahay in aan Khadiija Qalanjo aan ku soo dhaweeyo waxaan jecelahay badinaaga Khadiija inaad inoo taabato in macni ruwaayadihiis kala qayb gasheen fanka intaad isaga aad ka xasuusan tahay ruwaayadihiisii iyo waliba noloshiisiiba bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wallahi Maxamed Allah uu naxariisto in badan baan isla soo shaqeynay riwaayado dhowrana waan wada dhignay oo ay ka mid ahaayeen riwaayadihii Xasan Gani iyo Kaariya Allah yarxamee ay wada lahaayeen oo waxa jirtay mar kooxaha wali israacraacin jiray marka annaga oo badan oo Saado iyo Maxamed Axmed iyo Allah uu naxariisto iyo maxaydaan Cibaade Axmed iyo yaa koox gooniyana laga dhigay marka laba riwaayadood mu'allifiinta waa la israacraaciyay labada mu'allif baa la isku daray labadii riwaayadood ee aabahay ka samray iyo sida ma isku qabnaa ayaan labada riwaayadood ayaan horta iyo marka waa beri oo dhexdayada koox iyo loo kala sameeyay labada riwaayadood baan isla dhignay wax gaar ah guud ahaan October wax kasta waa laga wada shaqeyn jiray heesaha munaasabadaha wax kasta laakiin riwaayadahan marka halka markii laga soo tago ee la soo qaxay halka la yimidna riwaayadii ugu dambeysay aan wada galay marxuumka Allah yarxamo waxay ahayd waan ku jecelahay dadka ay jabinin oo iska laha sooraan ee ugu dambeysay halka laga dhawo Maxamed waxa weeyaan nin iska afkaaban intii ay imka dunia ka sheegto dhan inaan dadka waxba u dhimaynin hoos buu u foorari jiray qofka bini'aadamka naftiisa gooni isaga gooni u leh laakiin Ilaahay inta ka sokaysa laakiin shakhsi yani oo wax ka tirsanaya ama uu dhibaataynayo yani qunyar socod ma taqaan qofkaasi waa dhulkana wax ma yeelo soo lama oran jirin saasoo kale waxa marka inta ka badan taariikhdana waa la iga weeyay waa la iga taariikhdana inta adigu markaas waa intii uu anigu aan sheegi karo Ilaahay naxariistiisana ka waraabiyo isaga iyo intii ka horeysay intii umada Nabi Maxamed ba annagana Ilaahay nooga daban xariisto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أي أمها صنتهاي إن خديتشو إن قلنشو إن مركز بالواحد شعلها مركزنا كوسان قضاء إن قادعو إن كستو إن بكادو إكتو إن بربركي يخلق قيب سنكي إن الصومالي ذا عاد أورن كرتبا فنكي إن وبربران. وسيد الدنيا بينو شيكتبا إن فنكي سو مانتا وبربريبا ما كلتها هادنا إلى نحرسته دمشقة إن فنانين تأسيس وجود بيجي مانتا إن محمد أحمد كلع إن وتركي مركزي بربركي عند وحبة كارسانين با كلتها. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون قفل بو دمنا يا كرفان واحدا قف كستوا دمنا يا آمنو وارن حرد اسمع الدنيا أيضا نقدر نشوف تعاون رنتي أساسياشي فنكا نقول أساسي كوفر وليبا لكن ضلي السحر كلا دقو أفكار لبعض والدنيا رنتي فنك سومالي تيرك ووينا أيا أمريكا بحي دنيا تاريخ اسم محمد أحمد كشاكيسي محمد أحمد أنا وسديتن كي دتكي فنكي صوغلا يكو صوب حيوانها
barnaamijkii heesaa hargalay kabacdina waa beri ku biiray runtii markaas saa isku barana weeye maalintii ugu horreysay imtixaan laiga qaadayo kabanka lai tumay maxamed xamed ninka fadhiyay buu ahaa runtii wuxuu ahaa maxamed xamed fanaanan xaasid ahayn wuxuu ahaa fanaan haybad leh wuxuu ahaa fanaan qof walbaba ku daydo oo soo baxaya maalmeed waxaa dhegeysanaya xasan aadan oo la wareysanaya fanaanka weyn wuxuu yidhi masraxiyadda maxamed axmed baa uga dayan jiru yiri qof aan maxamed axmed si dunida u sheegtay maxamed axmed wuxuu ahaa fanaan akhlaaq iyo masraxiyad iyo fan isku darsaday buu ahaa ilaahay ninka dabeecad wanaagsanna ma jiro aniga weliba isku xaafad baan ahayn saaxiib baanu ahayn aabbana way ahaa markuu baxaya xataa maalintu baxaya isku kaa dambeysay ummadda soomaaliyeed waxaa ka baxay tiir aad iyo aad u baxay runtii duniya waa runteed waxaa moodaa fanka baalashiisii inuu sii go-ayo ayaad moodaa wax bedeli doonaa la heri doonin hal mar bay iswada raaceen dadkii fanka ugu waaweynaa maxamed salmaan ka mid yahay xasan diiriye ka mid yahay saada ka mid tahay magool ka mid tahay faadimo qaasin ka mid tahay allahuma sacaan maxamed nuur garey ka mid yahay xasan diiriye ka mid yahay wallahi dad waaweyn baa israacay ilaahay naxariisto dhammaantoodba xudeediyo hadda naga xanuunsan asagana allah caafiyaan leenahay runtii aabbayaasha fanka ugu waaweynaa ahaa hadda ma ahan qofku inuu markuu dhinto la yidhaahdo hebel waa dhinto tacsi iyo idaacadaha iyo laga buunbuuniyo laga sheegsheega ma ahan in la xasuusto waa in la xasuusto ummadda soomaaliya meel kastay joogtay inta nool wadanka taariikh bay ku leeyihiin runtii maxamed axmed oo kale taarikhdiisa wax wadanka gudi kara ma ahan la gudi karo ilaa iyo xorriyadoonkii ummadda soomaaliyeed waa in la xasuusto oo la sharfo oo la qiimeeyo fanaaniinta ka dambeysa oo soo baxaysa waa inay sharfaan kuwaas waa in fanka taarikhdiisa la dhumiya ma ahan taarikhda fanka waa inaan la lumin runtii maxamed axmed ilaahay samri iyo imaan naga siiyo intuu awlaadiisii intuu ka dhintay ummadda soomaaliyeed iyo hobladii waa beri weliba anaga xidid weyn baa runtii na go-ay waxaa moodaa mid noo sii siibayo waa moodaa marka ilaahay ha u naxariisto iyo fanaaniinta soomaaliyeed iyo awlaadiisii intuu ka dhintay caruurtiisii waxay sii dhaleen ma jirta markaa wax riwaayadahoo idinku aad iskala soo shaqeysay aniga maxamed axmed riwaayada maalma waa dhigay laakiin heeso badanaa soo wada qaadnay ilaa kuwii oktoobarada ka noqoto kuwii luuliyooyinka ha noqoto xafladaha munaasabadaan soo wada dhignay waa soo wada heesnay laakiin fanaanka aad u qiimo badan baa dadkii fanka igu soo dhiirigeliyey ayuu ka mid ahaa maxamed axmed waa hagaagaadaco aad iyo aad ayuu mahadsan yahay inagoo oo daawadayaal halkan kaga hadlayna caawa taariikhdii ugu baroor diiqayna ilaahay ha u naxariistee fanaankii weynaa ee inaga wada baxay dhammaanteen ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba waaba jecelahay idinkuna in aad nagalaba qayb qaadanaysaan barnaamijkan baroor diiqa ah oo aad khadka soo geli doontaan isaga oo weliba sida igu maqalaa uu ku dhashay wuxuu ku dhashay maxay ahayd Raydab Khaatumo ku dhashay ha oo ka tirsan gobolka Togdheer aan kugu dara Amberey Raydab Khaatumo ku dhashay company afartii sidaan dacar hadda noo sheegay company afartii fanka ku soo biiray dunia sheegeen walaalaha Hargeysa ahaa ragii walaalaha Hargeysa la aasaasay waxaa ka mid ah Cumar Dhuule waxaa ka mid ah maxay Xuseen Farax waxaa ka mid ah Cabdullaahi Qarshe الله ونحرس يوسف حاجة آذن إسماعيل عقف ما كم ذا دون يوسف حاجة آذن سكوتشرين تاكي أساسا وحسين فرح ما كده جيس ورئيس جيس إنه ولا له جيس كم ذا ما حسين فرح أنا كده جيس ورئيس جيس وهجاج وهجاج وان نشعلها بدمانتين إن أنا هذا كسي وضن دون بل إمي كنا وح أن شعلها bal in aan ku wareejiyo shaxshaxley oo iyaduna saad wada garanaysaanba markaad magaceeda maqashaan ka mid ahayd hobaladii waa beri caawna halkayna la joogtaa bal iyaduna dhinaceeda inta ay ka xasuusan tahay marxuumka bal in iyaduna inoo taataabato inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un allah u naxariisto janna firdawsa ala allah ka waraabiyo maxamed axmed aniga suu sheegay gaado 80kii baan fanka nala qoray markaasaan bartay nin fiican oo miskiin ah oo wanaagsan oo ahlu raxmo ah ayuu ahaa maxamed axmed riwaayadu waa isla dhignay hal riwaayad baa isla dhignay horta caasiyaa dhalay allah u naxariistay waxaa lahaa maxamed nuur shareeco kabacdina waxaan isla nimid magaalada Dubai barnaamij baan la dhigay weligay yaalla waxaan dhihi jiray qodax ka gardaran baa muddo maxamed axmed waana run allah u naxariisto waxaan u ticsiyeynayaa eheladiisii
ciyaalkiisii ciyaalkay dhaleen fanaaniinta waa beri meel kastoo ay joogaan ummadda soomaaliyeed ilaa raas caseer ilaa raas gambooni allah u naxariisto taariikhdiisa taariikha anigu ka sheekeyn kara ma aha waa taariikh culus inaan maantoo kale maxamed axmed mabashi aada iyo aad ayay u mahadsan tahay xareedo sida halka aad ka wada aragtaanba ha emotionku iska badan yahay oo hinta shaxshaxley shaxshaxley aad iyo aad baan uga xumahay daawadayaal waan jeclahay inay kusoo noqoto geerida caawaalkan aynu u fadhino ilaahay u naxariistee marxuumka waxaan jeclahay bal markana dhinacaygan bidixda in aan jaleeco farxan xidig ood wada garanaysaan oo kamid ah fanaaniinta iyagu qurbaha fanka ka bilaabay saa u malaynayo oo reer Jabuutiya dhinacaaga farxaano ilaahay u naxariistee maxamed axmed kuluc runtii garasho weyn baad ayaad isu leedihiin heesihiisa mid ka midana sida imika aynu la wada soconaa ma aan dhegeysanayba heesta runtii uu caanka ku yahay markii xornimada Somaliland ay ka qaadanayeen gumaysigan Ingiriiska heestii uu halkaasi ka qaadayna runtii dib baad u cusboonaysiisay ogolaansho isaga xaggiisa kaaga yimi marka bal taariikhdiisa ayaan jecelahay inta aad adigu ka garanayso bal inaad adna dhinacaaga ku darsato إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم أمد الصومالية دون كدافية جوكتا وحلاهي إنا لله وإنا إليه راجعون دبدحاتكي فانك الصومالية ومعرتي كل نفس ذائقة الموت وقف كستي طريقة ومريا مركا عاو وحا شيء كذا إنا لقى شيء كيو مناسب عاو ما هاي سجا وحويا وإنا لو دعيو مركا دعاء بينه واجب عاوة taariikh faneedkiisii iyo noloshu soo qaatayna wax weeyaan ina maaragtay jiinka inaga dambeeya si ay u gartaan ina laga qoro taariikh boogag laga qoro oo si ay dadku maaragtay kuwa dambe ay u gartaan waxa weeyaan waa dadkii fanka Soomaaliyeed lagu bineeyay ama sida oo adeero xudeydi iyo ani iyo marxuumkuba aan ka wada sheekaysan jirnay ama aan asxaab ahayn intii u dambeysay oo dhan aan aad iyo aad u wada joognay ama aan u tagi jirnay aniga xudeydi mar walba marka sida aad u sheegtay heeskan magowda candhadii waxa weyn ummadda Soomaaliyeed ay taariikh ku tahay oo calanka ayaantii la taagay heeskii la qaaday taariikhda kula taariikhda galay waxaan dib ugu qaaday codsi ani iga yimiday iyo garasho aw isaguna igu taageeray xudeyda adeerano aad iyo aad igu taageereen ay leeyihiin Soomaali maanta meeshii joogtay 60kii maanta taagan tahay waa magooda candhada inay maanta dib loo soo qaado oo la isku jeclaysiiyo walaalahan kala irdhoobay iyo taariikhda dib loo soo xasuusto sida taariikhda aan loo ilaabin sida daraaddeed baan heeska u qaaday iyo jacayl aan waxaan jeclaa marka waxaan weeyaan taageeradiisii iyo boorintiisii oo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa naxariistii jannana Allah ka waraabiyo ehelkiisii iyo qaraabadiisiina samri imaam Allah ummadda Soomaaliyeed oo dhanna waxaan leeyahay waan ka tacsiideenayaa aniga gaar ahaan waan iska tacsiideenayaa taariikh gaar buu ilaha marka naxariistii janna Allah ka waraabiyo aamin assalaamu calaykum aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay farxaan waxaa ku xiga Cabdiraxmaan Gaas oo isagana sida aad wada taqaanaan fanaan abwaan ah oo isaguna fankiisa aad wada garanaysaan runtiina qof walo inaga midiba xitaa dadka iyagu aan fanaaniinta ahayn ee fankiisa jecel qof waliba taariikhdiisa qayb ayuun buu ka hayaa marka bal waxaan jecelahay Cabdiraxmaan inta aad macnihii aad ka garanayso fankiisa iyo taariikhdiisa aniga oo jecelba inaad kaba mid ahaydba fanaaniinta higsada markaad u eegto hobalada waa beri oo iyagu haddii aanay fanka inoo aasaasin aanu fankan dambe aanu jireenba ha marka dhinacaaga adiguna baroordiiqda marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsu taqatul maut wa geeridu waa xaq weeyaan ilaahay wuxuu inoo abuuray waa caawidaatankiisa iyo dhimashada waxaan taasi halkan uga dirayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed
iyo intii uu la soo shaqeeyey iyo intii taqaanayba in ay u baryaan ilaahay inuu naxariisto maxamed axmed gurc wuxuu ahaa nin aad u qiimo badan dhan walba marka laga eego waa la isku wada raacay iyadoo kooxda waaberi ay ahayd hollywoodkii ama tiirkii fanka ee soomaaliyeed wuxuu haddana kasii ahaa ragga fanka lagu sheegaya horta waa wax ku dayasho leh waa flower waa ubax waa artist waa lagu daydaa marka dadka aad iyo aad ay waaberi xitaa dhexdooda ay say inoo caddeeyeen soola jirtay proofna ah lagu sii dayan jiray oo aktarada ah oo muxuu ahaa style kale oo staging kale oo si akhlaaq oo asluubaysan oo muxuu ahaa qurxoon ugu soo gudbin jiray ummadda Soomaaliyeed wixii fariintii qurxooneed ee maaragtay loo dhiibo wuxuu intaa ku sii dheeraa wadani buu ahaa qiimo leh oo taariikhdii iyo halgankii Soomaaliyeed ka qayb qaatay oo isagoo ardaya sidii ay muxuu ahaa taariikhdiisa ku helay u go'ay inuu fanka kala dagaalamo nacabkii dalkeena haystay markaas walba in uu codkiisa iyo hamigiisa uu ku gaaro oo ku soo gudbiyo taariikhdiisa waa bari baa joogta oo in badan ka sheegtay anigu run ahaantii fanaaninta aan ku daydo stagingkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo labiskiisa iyo aflaantiisa iyo aktirnimadiisa ayuu ahaa maxamed axmed ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariistii janno uu ka waraabiyo oo firdawsa caawiyo wixii uu dambi uu muxuu ahaa ilaahay inuu ka saamaxo caruurtiisa iyo eheladii qaraabada ka tegay iyo annagii Soomaaliyeed oo dhan uu noo ahaa ku dayasho nin mudana uu ilaahay samiriya iimaan naga siiyo sidaasaan leeyahay walaal dhimanaya kulligeen Allah inshallah waa la wada dhimanayaa xadintaas lagu kala dambeynaya caawa halkan waxa aanu fadhinaa baroor diiqdii aan ugu talagalnay ilaahay u naxariistee fanaankeenii weynaa ee maxamed axmed kulciyada oo waliba dadweynuhuna ay jecel yihiin iyaguna in ay dhinacooda ay qayb ka qaataan halkan bal aan anoo jecelnaan idin soo noqdo bal dadweynaha aan ku soo dhaweeyo dhinaca telefoonka halo assalaamu calaykum السلام عليكم من آدي بندين سلام يا دمانتين aad baad u mahadsan tahay waa deeqa qalbe نعم barnaamijkan ugu talagalay caawa ee baroor diiqda ay ilaahay naxariistay maxamed axmed kulc baa kugu soo dhaweynaya aadi aad ma santay walaalo runahaantii aad iyo aad ayaan uga helay barnaamijkan sida aad isugu keenteen fanaaniintii murugeysnayd ilaa maalintii uu dhintay marxuumku runahaantii waan kala qayb galay tacsida daraato aad iyo aad baan mar labaad u tacsiyadeynayaa caruurtiisii ehelkiisii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba fanaaniinta halkan caawa kugula suganaya inta maqan tacsi markaan ka imaado labada abwaane iyaguna fadhiya meesha waxa weeyaan aartaamac iyo faarax murtiile bal ducada abwaanada way kacdaayeen iyaguna maanta ugu duceeyaan ayaan ka codsan lahaa caawa waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa hagaag telefoonaduna runtii way fara badan yihiin dadka jecel iyaguna in ay halkan ay nagala qayb qaataan in iyaguna u tacsiyadeeyaan caruurtiisii eheliyadiisii iyo waliba dee ummadda Soomaaliyeed meel kastaba oo ay joogtaba bal aan inagu oo jecel telefoonka aan dib ugu noqono bal aan horta aar jaamac dhinaciisa aan sida deeq sheegtay ducada abwaanadu way ka cadaayeen aawna waa fara badantiino de ha dhinacaaga aaro adigu bismillaahi raxmaani kugu soo dhaweeyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geeridu xaq weeye waana jid aadamuhu wada marayo oo ina wada sugaya dhammaanteenba marka hore waxaynu uga baryaynaa marxuumkaa geeriyooday isaga iyo intii islaam ahayd ee ka horreysayba in ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo innagana inooga daba naxariisto maxamed axmed dee kolley waa beri baa fadhida oo tiirarkii ugu waaweynaa baa fadhiya annagu dee malaa waxaanu nahay waa beridii dambe afartayda halkan fadhiya waa beridii waa xaggaa fadhiya fankii waa beri bilowday unbaa halkii kasii wadaan haa tiirku unbaa sii adkaynaysaaba imika haddii aada loo isticmaalo la idhaha fankii wuu burburayna anigu taa dood baan ka qabaayo dee fankii hore dawlad buu ku tiirsanaa oo waxaa fan dhisan oo dawladdi daadihinayso oo guri ku wada xeraysan iminka example fiyoorihii bay dib ku wada waatan qalajo duniya waatan waa kan magaranaysa shaxshaxley iyo gaadacooba
meel bay ku wada jireen abwaankii laxankii musishankii qoladii ciyaartooygii kulli waa dhammaayeen wax waliba waa fududaayeen dowladduna waa fangarinaysa laakiin halkan waxa weeyaan haddii aan kelmadda ku yaro darsaday waxaan leeyahay fankan dambena waxa weeyaan wuu dadaalayaa itaalka oo dowladna magacan qabato yeelka iyaduna iskala batulogsanaya intaas waa intaa waxaad leedahay fankii wuu kala daatayo qurub buu soo galayo dibadii baa loo baxay waa jiraa waana la wadaa waanu socdaa insha allah dalkuna markuu si wacan isugu dabadhaco tiyaatarradii la habeeyo fiyoori oo kale la sameeyo halkiis iyo meel ka sarreysu soo gaari doona insha allah ase abwaan ahaan haddaan ku weydiiye aaro runtii abwaano waaweyn oo waxaa jiray hobolada waaberi ku jiray oo riwaayadaha hadday noqoto munaasibadaha heesaa u samayn jiray markaas idinka ase abwaan ahaan dhinaciina runtii dadku dee dhaliil bay idiin soo gudbiyaan waxay dhahdaan macnihii abwaanada macnihii in ay halkoodii kasii wadaan oo riwaayadihii ay fanaaniintii hore samayn jireen oo kale macnihii inay wadaan oo halkii fankii kasii wadaan si tiirkii aanu u burburin waa jirtaa imika example anigu imika example waxaan hayay 2 riwaayadood oo fuula ayaa waxaan hayay muddo ku dhow 12 sano dee tiyaatar lagu dhigaa ma jiro fanaaniintiina isla wada heli maysid marka waxay noqotay un dee guriga iskaga hayo marka dee la helo wax matela iyo goob lagu matelo un la sugbay noqotay dee intaana riwaayado fara badan oo kale waa lasoo saari lahaa faarax waa kan dee wada walaalkay faaraxna waa kan wada isagu imika filimahabu dee si yaroo kookooba aduu rag waa dadaalayaa laakiin heerkii dee ay joogeen qoladani dee anagu mana gaari karno abwaanintii horena ma gaari karno fanaaniintii hore ma gaari karaan laakiin waa dadaalayna weeye macnuhu halkii macnihii technology-gana hore u marayo halkii macnihii riwaayad laga matajo filin ahaanba qoladii hore xagga teknolojiyadda annaga kaga horeyna dee cajaladii yaraydii intii yaraydii la duubi jiray annagu dee imika heestii waxaanu ku diraynaa whatsapp oo markiiba xaggaasaa laga soo tumayaa oo codkiina Canada lagaga shubayaa haddaan intaa ka gudbo oo aan ku noqdo tacsibaynu meesha u fadhinaa kolley tiirarkii waaweynaa qayb ka mid way nala fadhida xareedaa fadhida oo aan u malaynayo inay ka horreysay uun guduuda carwo iyo dalays labadaas unbay ka horreeyaan qiyaasteeda guduuda ugu horreysay iyo dalays oo ka xogtay waxaan ku leeyahay nambarka 3 marka halkay dunida fadhido dee anagu waxaanu ka nidhaahnaa abo iska uma garanaysa kadabageysa waxaan leeyahay maxamed axmed wuxuu ahaa nin aada iyo aada tiirarka ugu waaweyn ee fanka soomaalida ah wuxuu ahaa nin xarago badan nin stageka aada iyo aada ugu qurux badan majaajalada khatara maxaa tahay afgaaban sida laysku wada raacay ixtiraam badan aan la soo koobi karayn nin walbana camalkiisu baatan ka raacaya ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu dembi dhaafo jannadkoodgowsana geeyo innagana inooga daba naxariisto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa hagaag inagoo daawadayaal weli ku guda jirna barnaamijkii baroor diiqda ahaa ee aanu halkan caawo dhammaantayo isugu nimi si aanu baroor diiqda ugala qayb qaadano faamiliga ehelada iyo weliba ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba weliba jecel yihiinna inay khadka telefoonka ay soo galaan oo iyaguna ay dhinacooda ay baroor diiqda nagala qayb qaataan bal markana anoo faarax usoo noqon doona waxaan jecelahay inaan khadka telefoonka aanu yeedho hallo asalaamu calaykum kusoo dhawow royal t v iyo barnaamijkan baroor diiqda ah magacaaga waa ku dhawaacana markaa la yidhaahdaa waxaan hadda dadweynayaa maxamed axmed sule oo aan xaafada isla deganay asigsiyaada anagoo ah faamiliga cabdullaahi beerihi sooraan waana maxsuuliina ilaahay jannada ha ka waraabiyo ilaahay ku siiyo anagu si fiican aan u garanay maxamed axmed inta aan xaafad isla deganay marka cabdulkiisana aan kasiiyo marka soomaaliyeedna keligeedaan allah ka wada آمين إلهي أنت بمكان إلهي نحرسته aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxay ahayd inantiisii walaashiis ayay ahayd ha oo kulleba de ka midaba
inoo sheegay inay isla deganayeen Fiyoraha nabad degan Fiyoraha maqal jabal bal walaasheed waa hagaag kulli way ilaa naxariis kulli way farabadan yihiin dadka taariikhdiisa haya ee ha runtii fankiisa inta xiisaysan de kulli way farabadan yihiin de wuxuu ahaaba fanaan runtii aad iyo aad markaad u eegto fankiisu oo qof waliba aad u qadariyo kana mid ahaaba de tiirarkii fankeena maanta aynu kuba faanaynaba aynu markaynu ummadda Soomaaliyeed meel kasto aynu joognaba aynu dal fankeena aynu la nimaadno wuxuu ahaaba tiirarka aynu ku faanayno ayuba kamid aha Ilaahay ha u naxariiste bal markana waxaan jecelahay in aan Faarax Murtiile ku soo noqdo Faarax anoo kugu soo dhawaanaya barnaamijkan baroor diiqda ah runtii wala socotaa fankiisa adigoo abwaanade heesaaya la xamiista ade maba kaaga sheekeen karaba marka bal waxaan jecelahay adiguna dhinacaaga inta aad ka xasuusato adigoo ah bade fanaanintan qurba hadana fanaan waliba uu garanaya uu la socdo taariikhdiisa marka adiguna maxaad ku darsan lahayd bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ilaahay maxamed axmed ha u naxariisto amiin ilaahay jannada ka waraabiyo amiin ilaahay ubadkiisii samiriye imaana ka siiyo heladiisii iyo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed ilaahay samiriye imaana ka siiyo maxamed axmed kulo anuu fankiisa jecel ismaan aqoon intii wadankii la joogay laakiin waxaan ku bartay Ingiriiska iyo la dhamaan ku bartay xaafadda Woolwich baan ku bartay run ahaantii markaan si dhaw idinka sheekeeyo fanaan aan dhex galay oo fanaan weyn isaga jiray library aan akhristo ahaa waxbuu ila talin jiray ninka idhadhasiiyey in anagu abwaan ahay waliba aan ereyadooda macna ka samayn karaan waxaan sameynaya aan wax samayn karaa ninka idhadhasiiyey ayuu ahaa sidii ay xareeda sheegtay run ahaantii waxaa dhab ah oo aan dhab uga arkay inuu ahaa nin afkaaban oo edabsan oo aan ahayn xitaa dad badan baan uga sheegay waxaan ku yidhi ma aha maxamed axmed fanaan qura maaha waa aqoon-yahan qaran weeyaan oo aad waliba waa oday suldaan weeyaan baan ku yidhi oo aad waayo waxaan garanaya nin baa maalin anigu meel joogo meel xaflada nagu joogna ayaa niman badan meel ku sheekaysan dhex nimi dabeetana niman baa yidhi hebel baa buu qorayo markaasa mid yidhi muxuu qoray waxbuu iska qorqoray markaasu waartaa ha qoray hadda mada qoray ha qoree daa waxu doon ha qoree daa waa dhigaal weeyaan wixii la qoraba waa dhigaal muxuu ahaa waa dhigaal oo wax noo dhigmayo wey xitaa hadduu qaldan yahay buu yidhi mid kalaa sixi doono iyo qoraalku ha batee daaye markaas run ahaantii maxamed axmed waxaana isu kaa dambeysay isaga oo maxaa awardkii markii la siinayay hay award ay siinayeen wali markaasaan isagoo la siimaan ogaan sugunaysa oo loo yeedhayo annagu way yeedhan markaa taa waan canaantay waxaan ku wuli meesha maxamed axmed joogo ya dadka kale saaraan ku wuli ku yaraay ku yaraaba isku dhex qaldaysa maxamed axmed annagu library nooye awardkii sanadkan miyaa soo kii sanadkii hore kii hore siino aan u wada kacanay oo wada nubiyo wali markaa aad u xanuunsanayay ka muuqatay laakiin maalmo dhaweyto anigii farxaan xidig wada socon wali ku tagnay isagoo fiicnaaday maalmo dhaweytay 2 bilood iyo bar meelaas isagoo fiicnaaday markaasaan waliba ku yiri anigu meesha film aan tagnaa soo duubno markaasuu na dhiirigeliyo yiri dadaala aad baa fiicantay oo nagu farxay oo aan salaanayo nabar la sheekaysanayni marka ilaahay naxariis janna ka waraabiyo waxaan u soo noqonayaa maxaa deeqa qalumbeerigeyda wax ka dhaha dee waan iska golka fulay oo intaasoo ilaahay aqbalaay ilaahay waa aqbalayaane haliyey dhabaabaa dhulkii ka baxay nin magac dheer ayaa had yar dhintay nin magac dheer baa had yar dhintayoo dhiiloodo dadkeeniyo dhamiyo ilmadii dhacday baa dharkii qoyso maxamed kuluc dhumay ee dhankaaga rabow dhasii jannadoo dhexgee fardowsa dhexgee dhasii jannadoo dhimbiilaha cadaabta dhinac mari amiin aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay qof lagu jiro ilaah baa oge ducadana ilaahay waxaan jecelnahay dhammaanteen ba halkan aynu ugu ducaynayno ilaahay inaga aqbalo meel kasta oo ummadda sama joogtaba waa loogu ducaynayaa haddaan gaarduca kuusoo noqdo haddeerta waxaad afka ku dhufatay macnihii fanaaniin badan waxaa jirta xanuunsanaysa in macnihii fanaanku markuu dhinto uun in macnihii baroor diiqdiisa la fadhiisto maaha laakiin fanaanku marka uu xanuunsanayo macnihii in loo kaco in macnihii dadka oo dhame u kaco ama ha noqoto hoboladii waaberi amaba ha noqoto dee dadkan kale ee markaad eegto midiyaha ha
marka maxaad odhan lahayd ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ha joogaan ama fanaaniinta ha noqoto ama media ha noqoto amaba ha noqoto dee ummadda Soomaaliyeed in daawanaysa maxaad odhan lahayd waxaan odhan lahaa ummadda Soomaaliyeed qofka maaragtay in fankiisii iyo lagu soo raaxaysta ma aha waxaan lahaa ummadda Soomaaliyeed dadkana taariikh weyn bay ku leeyihiin dalka waa usoo halgameen dadka Soomaaliyeed waa usoo halgameen in kuwa nool loo gurmado oo xanuunsan sida hadda xudeydii oo kale taada waa xanuunsan yahay hadda farxaan baa ii sheegay wuxuu yiraahday ha cabdi tahliil asna intaasoo bilood sariir iska saaran oo in badan laga hadlay waliba badan aanu ka hadalnay TV-yada in loo gurmado inta jiran laga warqabo ma ahan qof markuu dhintay inta TV-yaasha idaacadaha iyo laga sheekeeyo taariikhdii ma ahan laga sheekeeyo marka waa in kuwa nool la ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay noo kala dheereeyo ilaahay caafimaad siiyo intayada nool hadda in yar baa dadkii waaweynaa noolba oo ixtiraami jiro xareeda ka mid tahay guduud carwo maandeeq ka mid tahay allahu mustacaan dalays bacalwaan asna jooga jarmalka guduud carwo waa sheegay waa hooyadii fanka waa sheegnay ilaahay maaragtay ilaahay iyagana waxaa leenahay cimri dheer ha siiyo amiin faaraxna aad buu mahadsanyahay gabayga yar oo maaragtay qiiradaha uu noo sameeyey waa mahadsantihiin idinkana abwaaniintiina walaalaheena kulligina aad baad mahadsantihiin ilaahay waxaan ka baryaanaa samir iyo iimaan intii dhimatay naga siiyo maxamed axmedna ilaahay jannada ha ka waraabiyo runtii fanaan taariikhdiisa laga sheekeyn kara ma aha maba kusoo koobi karna fanaan wuxuu ahaa akhlaaq leh fanaan wuxuu ahaa fankiisa qof walba ku daydo waxaan dhageystay 2 fanaanin oo waaweyn oo runtii aad u qiimo badan oo labaduba yiraahdeen fankiisa waxaan ku soo dayanay maxamed axmed waa xasan aadan iyo axmed cali igaal labadooda waa dhageystay waraysigooda annagoo yareerar ugu dambeeyay saas kale maxamed axmed ugu dayan jirnay maxamed axmed oo kale taariikh uu fanka ku leeyahay lagama sheekeyn karo runtii horaa loogu sheekeeyay marka ilaahay samiriye ma naga siiyo dhamaanteanba isaga iyo fanaaniinta runtii aad wada tiriseen Cumar Dhuula kamid ahaaye Allah naxariisto kulligood way fara badan yihiin Maxamed Salabaan kamid ahaaye aad bay u fara badnaayeen Faadimo Qaasin Maxamed Salabaan Faadimo Qaasin waa la fara badan ilaahay dhamaantood ha u wada jannadii firdawsa ha ka waraabiyo hana u dambi dhaafo haddaan kugu soo noqdo in xarada Ismaaciil dunya fanka markii aad aasaasiiseen walaalaha Hargeysa adigu waad ka dambeysay hobaladii waa beri baad ahayd raadi Muqdisho ayay ahayd way kaa wada horeeyeen laakiin waxaan kaaga mahad celinaynaa macnihiisa aad taariikhda u hayso runtiina aad caawa halkan aad u soo bandhigtay dadka jecel in ay fankiisa ay ogaadaan waxaan ka ilaaway yani aniga wax yar baan hadaayo caroodo marka waa ilaawaa wax walba caroodo heesaa almaalo hasheena maanta oo markaas ay wadeen iyo heese qaaliya uu qaadi jiray muxuu ahaaye maxamed axmed waxaa ka mid ah afqalaad aqoonta miyaa waxaa iskale dhiig faraha gashaa dhimasha nolosha dhaantee NFD waxaa ka mid midnimadeni mogaatee علي شو لا يضرب ما سنة فرح ولا لما تري كرا wadaniga runtii heese badan buu uu sameeyayo oo ay kamid ahaayeen markaad eegto riwaayadihii dambe ay dadku ku wada yaqaanaan oo uu oran jiray ninba waayihiisa ilaa meel ku waabo waynu kala fogaanay miyaan ku waramay wali oo la qaadi jiray in fanaanada caanka ah Aamin Cabdilaahi oo runtii heesaha ay dadku ku xasuustaan ay dadkan dambe ay aad u dhageystaan heesihiisa kamid ah محمد علي كاري سيدا ما اسكو قبلا هذا جر واضح سجري من كل شيء iyo واضح وحوي هذا كاري لما مؤلف لما روايات محمد كاري كاري الله يرحمه iyo ninka la xasan gari ayaa markaa la kooxaan la isku raacay marka labada riwaayadood waa la isku daray marka labadii riwaayadood laba magac bay kala ahaayeen laakiin isku dumista aqalkayga arbaa un baan maxay tahay aan ku wada dhigaynay saasay ahayd marka maxamed wallahi deemka intii laga hadlay waa laga hadlay
taariikh yani heesaha wadaniga yani kuwa maguuraanka iminka heeska tan magooda candada karto magooda oo kale labadan barbaraan kale يعني بربران يعني أفر شن هاس لحاس أو والدنيا أو مجورانا أو يعني أن يكتر هلا بإلا وانا وهذا يشعل وحاس وحي هاي الإسكات ترمله هو عادي سيدا كل شيء شغال شغاله هواي وحكستبا وحي يودن كتك حاول نقمهم سلمانتا دعاء إنه الدعين لا حريستي سيشنو لا هي إنه deeqo ubadka uu ka tagay iyo ubadka ay dhaleen iyo intii fanaan oo dhan ama ha yaraado ama ha weynaado aamin ilaahay samriye iimaan ka siiyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasto ay joogaan ilaahay nagana nooga daba naxariisto aamin aynu wada ducayno dhammaanteen in ilaahay uu jannadii firdawsa uu ka waraabiyo una dembi dhaafo iyada oo ay waliba farabadan dadka jecelna telefoonada ay dhinacooda iyaguna ay kaga qayb qaataan bal waxaan jecelahay markan khadka in aan u yeero telefoonka hallo assalaamu calaykum calaykum assalaam barnaamijka baroordiiqda ayaan kugu soo dhaweynayaa magacaaga abaayo waxaa la yidhahaa sayd bin dhaweyne allah sayd masha allah waxa waaye abaayo waxaan kamid ahay fanaaniinta kulli waa salaamaya horta waa ka qaadnay fanaaniinta oo dhan iyo adigaba oo ka qaadnay waxaan abaayo taxsi tiiraanyale aan maanta aan ka geysanayna oo kulligeennaba aan u xanuunsanaynaa maxamed axmed ilaahay u naxariisto mariyo iimaan saadaqa allah naga wada siiyo ummadda Soomaaliyeed anagoo dhan anaga si gaar ah dadkii la soo shaqeeyay aan ahay oo kamid ahay goboladii waa beri muddo badan aan wada shaqeynay isaga waxaan isla wadnay waan dhageysanayay caawa dhan barnaamijka riwaayadii cilmi caado marka ninkaas waxaan tilmaami karaa nin ما شاء الله تبارك الله ولي ما أعرف دمبري أن هوتيل وده سياحين رواد وده دقيني ما لنا ما نأرق أسوق أما عريسن أما إسبدله أما وحلقة شيئا كرو ولا شيء ده وده عدي سنك أن ولا شيء ده سو حنقصنا عن نرك هرت إلى إن حريستي جنة حبيو آمين آمين تبارنا الله نجسيو آمين محي هاي تروح كلام ما تبيه كرنا مال فنانين تنوعوا تحتينا ilmihiisana waa uga taxsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa uga taxsiyeynaa ilaahay naxariista jannaha siiyo aamin aadina iimaan naga wada siiyo waxa kale oo aan idin iidan rabtay inaad ka taxsiyeyso gabar kale oo iidan waa bariya saaxadii loo iyadana waa ku wareejinaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aan kugu soo dhaweeyay adigana way ku jiraan haye assalaamu calaykum aamino salaam abay marka ugu horeyso calaykum assalaam walaalo waxa kula hadlayo waa faacaday marka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un maxamed axmed kuluc ilaahay ha u naxariisto aamin annagana ilaahay ha nooga daba naxariisto intii ummadda nabi maxamed oo ka dhintay eheladii oo ka dhintay ilaahay ha u ka samar iyo iimaan allah ka siiyo iyo awlaad isaba waxaan kaloo halkaan uga tacsiyeynayaa aamino كله إلينا إلهي أولاد ودليل وأذجدي إلهي سمر إيمان إذا الله كسيو نوحن كلام كإذا كسلام يا أمة الصوماليات إن إلهي سمر إيمان كسيو فنانين الصوماليات أيو قدم تي محمد أحمد كله أساسا إلهي سمر إيمان هقوة السيون لأن هاي خاصة هدان هاي فنانين تي هو ولد وبري garab kayni baa go-ayaan leenahay anaka fanaaniin badan oo qiimada waa naga baxday maxamed axmed kuluc in badan baan ka aqaanaa ilaa 86 dadkii yaryaraayo gadaal laga qoro la soo shaqeeyay dhaafino waan aqaanay haye abidabi buu noogu yimid show baan la dhignay walaalkeen maalintaas baa wajigiisa iigu dambaysay marka aad baan ugu xumaay ilaahay samri iimaan ha naga siiyo aamin aamin adigana waan salaamay wiilasha meesha fadhiyo fanaaniinteena ahna waan salaamay قبلها وان سلامي قلنجة إيو عبادة إيو كل قبلها دوام وذا سلامي أدينا وسلامة معاك. عاد أياد أمهات سنتهاي إن رنتي إن
sida ay sheegeen fanaaniintu dad badan oo la soo shaqeeyey ayaa jiro maba soo koobi karnaba aad iyo aad ayay u fara badan yihiin waxaan doonayaa in aan Faadimo Shaxshaxley aan dib ugu soo noqdo maadaama aad markii hore aad jeclayn inaad ka hadasho aad macnihii aad murugootay waxaan doonayaa inaad halkii kasii wadato oo mikrofoonka kugu soo celiyo may abaay aniga waxaan ka sheegi karaa Maxamed Axmed ma jiraan fan horan oo lama soo shaqeynin waqtigaan bilaabayna waan kuu sheegay 80kii baan fanka bilaabay Maxamed daxrada hore u sheegtay Maxamed oo kale lama heli karo mala soo baxaayo been ma aha marka ilaahay subxaana qaadir meeshii uu ka baxay ilaahay boogtii ilaahay hanoo bogsiyo wax kaloo dheena amiin samriye imaanahay naga siiyo imaan saadaqa allah naga siiyo anigu hal riwaayad baa isla dhignay dubay show baan ku wada dhignay laakiin aqoon kaloo aan u leeyahay ma jirto Maxamed Axmed qodax ka gardaran baa mudda qodax ma taqaan adigu horta qodax oo wada garanayna qodax aadan miskiin yahay buu miskiin waa nin miskiin waa nin afgaaban marka waxaan ku tilmaami karnaa aqalna ilaahay janna fardoos amiin aad iyo aad ayaad u mahadsantahay inagoo halkan isugu wada nimi in aan ugu ducayno ilaahay naxariistee fanaankii weynaa Maxamed Axmed Kuluc oo ku geeriyooday isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa bal markana waxaan jecelahay in aan ku wareejiyo Cabdiraxmaan Gaas haye Cabdiraxmaan mar kale ku soo laabtay waxaan ku soo laabtay inaan si dacsiye gaar ah aan uga tacsiyeeyo walaashay aan aad u jecelahay oo fankayga iyo muxuu ahaa falla qaybsigeeda qayb weyn ka gashay oo caruurta ugu badan Maxamed Axmed Kuluc u dhashay Aamin Cabdullaahi Cumar Aamin Dool waxaan leeyahay walaal samir iyo iimaan adii caruurtaada Ilaahay ka siiyo Soomaaliya oo dhan buu ka dhintay dadku u dhaxeeyay muxuu ahaa nolol fiican baa soo wada qaateen marka samir iyo iimaan baan leeyahay Ilaahay ka siiyo Ilaahay isagana ha naxariisto jannada firdawsa ka waraabiyo amiin dadka Soomaaliyeed oo fanaaniinta jecel waxaan dhihi lahaa dadka ku dayashada mudan wuxuu ahaa Maxamed Axmed oo kale star actorinta Mareykanka oo kale qofka edabta iyo akhlaaqda iyo stagingka iyo qurxinta iyo labiska iyo xaragada iyo sidaas oo kale loo baahan yahay ninku waa inuu sidaas dadku ay u jeclaadaan oo u soo jiitaa oo xaraga iyo isku darsadaa wixii looga baahnaayo dhan ilaahay ha u naxariisto nin culus baa naga baxay waa mahadsantiin amiin haye kelmadii u dambeeyay dhinaca ducada intii taasida gaarka ahuna waxaan si gaar ah halkan uga taasiideynayaa fanaanada ahaydna marwadii marxuumka Aamin Dool iyo caruurta uu ka tegay marxuumku guud ahaanba waxaan kaloo ka taasiideynayaa dhammaan fanaaniinta iyo bahda suugaanta oo dhan oo isku duuban ama abwaan ha ahaato ama ha ahaato fanaaniin ha ahaato halkan walaalka yidhi Hollywood bay ahaayeen waa berina waxaan leeyahay waa beri Hollywood way ka sarreysay Hollywood waa meel kharriban weeye laakiin waa beri waxay ahayd wax ka qiimo badan Hollywood laakiin isagu lama jeedin sidaasay wuxuu jeedin halkii ugu sarreysay ilaahay ha naxariisto amiin dhammaantiinna ilaahay samir iyo iimaan ha naga wada siiyo amiin intaas ma ku soo koobaya assalaamu calaykum haye imikana Faarax Murtiile haye aad iyo aad baa horta aynu dhammaantiinba aynu ugu ducaynay waanu sii ducanaynaa isagana wax maanta u dana in loo duceeyo quraan hadduu dhinto ducada u dana marka ilaahay naxariistina ka waraabiyo amiin waxaa kaloo cajiiba oo nasiiba in la isku raacay waxaa la sheegayaa qofka haddii intaasoo qof ay isku raacay inuu yahay qof wanaagsan oo jannadu gala haddii isku raacay qof xun yahay oo kale cadaabtu gala marka waxaa hubaal ah sida edabtiisa iyo akhlaaqdiisa loo wada sheegay iyo dhowrsanidiisa in lagu daydo oo qofkii janno doonayo wanaad sa ahaatid dadku ay kaa marka dhimatid kaa wada amaan kaa yidhahdaan wax dhiba noomu geysan weynu dadku ay yidhahdaan marka dhimatid marka ilaahay naxariistina ka waraabiyo waxaan kaleeyaa anigu halkan taxsi wadarayaa marwadiisa Aamin Dool iyo marwooyinka kale iyo caruurtiisa oo dhan guud ahaan caruur badan buu lahaa Maxamed Axmed marka ilaahay hawlaha dhammaantood marwooyinka gursoo dhan waan ka taxsideynaa meel kastaba ay joogaan aad iyo aad baana xareedo iyo imaadsan yihiin iyo
faadumo iyo qadiija iyo Gaado. waayo iyaga oo ah dadkii maxaa bayska ahaa ee soo shaqeeyey iyaga aad baan aniguna waan gudbin doonaa waxii aan kalan ka sheegteen waan gudbin doonaa wax noqon doonaa wax taariikh oo la qoro oo si la isaga daydo marka aad iyo aad ba maasantihiin farxaan هي فرحان أذان مركن كوجو رجلنا ما دام برنامج كوجو جبجبية هي أظن دين عاجم حد كسو جبجبين لها أنا واحد كسو جبجبين يا دي وحويان إن الدعاء أسي ودنا تكرر لبعض عن كوكيل هنا أو adeero xudeydi inuu isagu wax weeyaan xanuunsanayo ilaahay caafimaad siiyo isagu wax badan oo taariikh badan ay isla soo mareen oo ka sheekeyn lahaa oo qof maanta ugu aqoon badnaa isaga oo ahaa markaan saddexdeed wada sheekaysanayno naftaada waxaad inaad filim daawanaysid baad mooysid sida ugu wada sheekaysanayeen iyo waxyaalaha ay isla soo mareen marka waxaan leeyahay naxariistii janno allah ka waraabiyo marxuumka xuduudda aabana allah caafiyo marka ha loo wada duceeyo labadoodaba iyo dee ummadda soomaaliyeed baa loo wada duceeyo waxaan leeyahay amiin hay gaadico dhinacaaga waa wada ducaynay horta maxamed axmed waa laga sheekeeyay taariikhdiisa qofka maaragta adinkiisa iyo afkiisa laga ammaan helo qofkaas qof ehlu khayra wey qof wanaagsan si faarax sheegay runtii nin aad iyo aad qiimo badan buu ahaa walaalkii maxamed axmed marna aabbahay uu ahaa weligiis xataa neenaaseed iguma yerin waxaan cabdirsaaqaa iguma yerin wallah wax kale iguma yeeri jiray cabdirsaaq uu oran jiray ilaahay samriga imaal anaa naga siiyo walaalkeen awlaadiisii iyo intuu dhalay intay sii dhaleen caruurtiisii iyo aamino cabdullaahi cumar aamino dhool oo caruurta ugu badan u dhashay samari imaan allah ka siiyo intii dhimatay ummadda soomaaliyeed fanaaniinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo dadka soomaaliyeed waxaan leenahay samari imaan allah naga siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa kitaabkiisa midigta gacanta midig ilaahay ka siiyo ayaan ilaahay ka baryay ilaahay inuu u naxariisto oo u dambi dhaafo baa ilaahay ka baryaynaa آمين مركنا أنكو ريتشيو خديجة قلنشة هي waxaan ugu soo noqday dhowr hablood oo London wada ogtiin duruufteeda badan dhowr hablood oo soo wakiishay oo yiri taxsida oo inay yimaadaan ay markii hore ahayd haddana ama gaadiid ama dhib kala duruufaha wala socona oo ay kamid tahay cibaada axmed amaara iyo faynus sheekh daahir oo iyagu jeclaa caawin ay nala joogaan laayeen inay yimaadaan laakiin duruufta ayaa keedi weeday halkan marka waxay yiraahdeen waa inaad naga gaarsiisaa taxsi marka intaasaan ugu soo noqday allah uu naxariisto way man lahayd joogto dubay ku maqantay wadanka marka waxa weyn laakiin way joogaan habeen hore taxsi way joogaan laakiin duruuf baa caawa atimid markaasaa darteed wayna soo wadaadleen macalin way soo gaari weyday iyaduna wadankii baa kala fog qabow baa jira transport wax kasta iyo dhibaato iska jirta jecladeen inay nagala qayb qaadato xaafadiisii uu deganaayo wilijna waa iyagana ugu tacsiinaya anigana waxay soo wakiilatay Shamsa Bashiir Faadma Qaasin iyaalkeedii odageedii waa ila soo hadlay wuxuu joogaa Yemen wuxuu yiri iga gaarsi tacsida aamina dool waxaan ku leenahay adiguna samri iimaan allah ka siiyo maxamed karaama waa ka kulli inta fanaan oo dhan baan wakiil ka nahay allah u naxariisto aamin aamin haye dunya maxaad ku darsanaysaa adigu okay way marugaysan tahay aad iyo aad u mahadsan tahay waa gabagabo markaa in aad macnihii maxaad ku soo xidhi lahayd haa way xidhantahay iyadu uma baahna بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
صدق الله العظيم aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin anoo idinka mahad celinaya sida wanaagsan ee caawa barnaamijkan adiga la qayb qaadateen aynu halkan baroordiiqda ugu sameynaynay fanaankeenii waa inaga baxay ilaahay ha u naxariiste maxamed axmed kuluc hadday noqoto hobolada waaberi iyo haddii ay noqoto abwaaniinteena fanaaniinteena iyaguba taariikhdeeda inta ka garanayeen ka sheekeeyay iyo fanka intaba dhammaantiin aad baan idinka iyo weliba ducadii faarax murtiile aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay saan horeba u sheegay qof lagu jira ilaahay baa ogey ilaahay in ducadaasi uu qaado uu aqbalo dhammaanteenba halkan iyo intii telefoonka nagala qayb gashay ee jeclayd iyaguna halkan baroordiiqda ka qayb qaadanaysay uga ducaynaysay waan u wada ducaynaynaa dhammaanteen ilaahay ha u naxariiste maxamed axmed kuluc sida aad u wada garanaysaanba ka mid ahaa tiirarkii fanka soomaaliyeed waan halkan uga tacsiyadeynaynaa faamiligiisii caruurtiisii eheladiisii iyo weliba ummadda soomaaliyeed intaba wuu inaga baxay dhammaanteenba waxa aan leenahay ilaahay qabriga ha waasiciyo ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo ilaahay kitaabka gacanta midig ha uga dhiibo intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii baroordiiqda ahaa waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaantayo sidaa iyo nabadgelyo bye bye